diyaaraduhu waa qayb ka mid ah nolosha aadanaha waana safarka ugu fudud ee safaradaha aadanuhu u galo sidoo kale saacad kasta iyo waqti walba waxaynu aragnaa kumanaan diyaaradood oo maraya dusha sare ee hawada waxaana isticmaala malaayiin dad ah kuna kala goosha wadamaha caalamka waxaynu soo bandhigi doonaa 5 diyaaradood ee qaadi kara miisaanada ugu culus uguna weyn ee caalamka haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena fadlan inoo subscribe garee kadibna riix calaamada gambaleelka si aad u hesho muuqaal walba oo aan soo gelino YouTube channelkeena Antonov AN-22 Ante waa diyaarad leh istiraatiijiyad dagaal waxaana loo sameeyay in lagu qaado sawaariikhda culculus waxaana la sameeyay 1966 diyaaradan dhirirkeedu waxa uu gaarayaa 57 mitir halka joog ahaanna uu gaarayo 21.5 mitir dhirirka baalaheeduna waxa uu gaarayaa 64 mitir waxayna qaadi kartaa miisaan gaaraya 80 tan Boeing 747 Dreamlifter waxay leedahay 4 motor waxaana sameeyay shirkadda Boeing kuna caan baxday soo saaridda diyaaradaha xamuulka qaada iyo kuwa qumaatiga u kaca diyaaradan dhirirkeedu waxa uu gaarayaa 71 mitir halka joog ahaanna ay gaarayso 21.5 mitir dhirirka baalaheeduna waxa uu gaarayaa 64 mitir waxayna qaadi kartaa miisaan dhan 123 tan 3 Lockheed C5 Galaxy diyaaradan waxa iska leh ciidamada cirka ee Mareykanka waxaana loo sameeyay in lagu qaado gaadiidka iyo qalabka militariga aadka u culus diyaaradan dhirirkeedu waxa uu gaarayaa 75.5 mitir dhirirka garbaheeduna waxa uu gaarayaa 68.5 mitir waxayna qaadi kartaa miisaanada aadka diyaaradan gudaheeda waxa gali karo 12 kamid ah gawaarida militari ee noocoodu yahay Hammer iyo hal diyaarad oo nooceedu yahay Apache sidoo kale waxay qaadi kartaa 2 taangi oo kamid ah kuwa dagaalka iyo helikabtaro waaweyn Antonov AN-124 Rusland adeegsiga ugu weyn ee diyaaradan waa ciidanka cirka ee Ruushka waxaana la soo saaray 1982 waxaana lagu soo saaray Ukraine waxa uu u adeegsadaa istiraatiijiyad military waxaana lagu talagalay isku dheelitirka qalabka military ee aadka u culus waxayna qaadi kartaa miisaan dhan 120 tan June 1987 waxay awood u yeelatay inay gasho safar masaafo ahaan gaaraya 20,121 kilomitir iyadoo culeyskeeduna ahaa 455,000 oo kilogram iyadoo aanan joogsan muddo 25 saacadood ah iyo 3 daqiiqo Antonov AN-225 Amir diyaaradan oo ah mid ugu dheer uguna culus ee diyaaradaha militariga culeyskeeduna yahay 600,000 oo kilogram waxayna qaadi kartaa 640,000 oo kilogram waxayna ku shaqeysaa 6 motor sidoo kale diyaaradan waxay qaadi kartaa xamuul kasta oo weyn waxaana u sabab ah dhulka ballaaran ee ku dhex yaala gudaha diyaaradan waxay qaadi kartaa 10 taangi oo nooca dagaalka ah iyo 2 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca daawada waxaynu gaarnay dhamaadka fiidiyogeena waxaynu ka codsanaynaa inaad like inoo saarto kadibna aad la wadaagto walaalahaaga mahadsanid